Magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa lagu soo warramayaa in lagu xiray ku dhowaad 51 dhalinyaro ah kuwaas oo la sheegay inay ka soo jeedaan dowlad-deegaanka Soomaalida Itoobiya. Ilo xog ogaal ah oo aan helnay ayaa sheegaya in xariggani uu ka dhashay howlgal ay iska kaashadeen dhinacyo amni oo la tilmaamay inay yihiin Puntland iyo dhinaca kale oo la xiriira Itoobiya. Inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin faahfaahinta iskaashigaas, sidoo kale wararka qaar ayaa tilmaamaya in dhallinyaradani ay ka imaadeen dhanka iyo dowlad-deegaanka Soomaalida, hase yeeshee weli lama hayo war cad oo faahfaahsan oo ku saabsan sababta rasmiga ah ee xariggooda. Ilaa iyo hadda ma jiro war rasmi ah oo ka soo baxay dowladda federaalk Soomaaliya ama maamulka Puntland. Sidoo kale iyadana ma jirto war rasmi ah oo ka soo baxay dhinaca Itoobiya oo ku saabsan dhacdadan. Waxaa jira warar iskhilaafsan iyo xogo aan dhammaystirnayn oo sii kordhinaysa su'aalo ku saabsan sababta dhabta ah ee ka dambeysay xarigga iyo xaaladda dhalinyarada la xiray. Wixii faahfaahin ah ka soo kordho waxaan kugula wadaagi doonaa warbixinadeena dambe.